السلام عليكم ورحمة وسمسم حسن وإذن لكم سودو هذا شانن كيغا maanta waxaan wax ka sheegi doonaa calaamadaha caruurta marka ay ilkuhu soo baxayaan iyo waxyaabaha ay dareemaan iyo waxa xanuun la soo darso oo lagu garan karo inay calaamadihii ilka soo bixida tahay. Marka koobaad caruurtu waxay dareemaan dareer in ilmihii dareer yeesho, sidoo kale dareerkaasi wuxuu ku sababaa in wajiga ay ka soo baxaan finan yaryar oo furuuruca, sidoo kale ciridka oo barara ayaa lagu garan karaa. sidoo kale xanaaq ilmuhu yeesho inuu ilmihi yara xanaaq yeesho marka ama soo qabato ama caruurta ay sira laayaan ama waxaad ka qaado kale uu xanaaqo ilmihi. sidoo kale waxa lagu gartaa ilmuhu oo jeclaysta inuu qaniino wax qaniino gacmaha ama marooyinka kale inuu qaniino ama markaad u dhawaato kale gacantaada oo kale wad dareemi kartaa inuu kalba ku soo qabto gacanta ka qaniino ilmihi yara. sidoo kale ilmuhu cuntada uu diidaa marka ay u soo baxayaan ilkuhu. sidoo kale wuxuu la kulmaa dhibaatooyin xagga hurdada oo kale, hurdada seexashada hurdada. sidoo kale waxa ku dhacda ilmuhu qandho kale inuu marmar qandho yeesho. sidoo kale waxa ku dhacda inuu matag yeesho. sidoo kale waxa ku dhacda inuu shuban uu ku dhaco kale calooshu ay xanuunto. marka haddii aad aragtid calaamadahaas oo kale ilmaha waxaad siin kartaa wuxuu calaaliyaad siin kartaa ama caag yar ahaato ama wax yar oo nadiif ah ayaad u dhiibi kartaa si ilmuhu calaaliyo iligii ciridkii ugu adkeeyo ugu qaqabto kalba. waxaad siin kartaa cunto qabow sida yogurka oo kale ayaad siin kartaa. yogurkuna wuxuu ka yareeyaa ilmaha xanuunka haya ayuu ka qaboojiyaa ilka soo bixida. sidoo kale fartaada oo nadiif ah ayaad ciridka ugu sida ugu masixi kartaa, aad ugu daliigi kartaa ama aad ugu duugi kartaa. waxay ka yareynaysaa xanuunka. aad baad u mahadsantihiin. channel-kayga ku soo biira si aad u heshaan fiidiyoyaal faa'iido leh insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullahi